Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. We have our lessons each and every Tuesday and Saturday. So walaalayaal kusoo dhawaada casharadeena qanaalkeygan oo Faadumo Cusmaan. Lessanadan i baro waxa way Talaadada ilaa Sabtida labadaas maalin. Marka today we are going to have English comprehension. Waxaan baranaynaa fahanka iyo akhriska Ingiriiska. Marka maanta akhris leh iyo tafsiir baan sameyn. Waxaan rabaa inaan marka aniga akhriyo idinkana iga daba akhriseen. Codkeygana xoogaa safarkan xoogaa u weynaaday hergeb yar baa igu dhacay. Marka aan u malaynaa qof kale waa un aniga leh. Hay marka casharadeena aan galno. The post office. Xafiiska boostada. This is a post office. Kan waa xafiiska boostada. We can send letters from here. Warqadaha inta laga diri karaa. The postman delivers letters. Ninka boostada ka shaqeeyo warqadaha gaarsiiyaa dadka warqadaha leh. Julie is sending a letter to Sam. Julie warqad waxay u direysaa Sam. We can also buy stamps from the post office. Waxaan sidoo kale ka iibsan karnaa warqadaha boostada. Akhriska mar labaad baan ku soo celinayaa si fiican ha ii dhegeyso. This is a post office. We can send letters from here. The postman delivers letters. Julie is sending a letter to Sam. We can also buy stamps from the post office. Tartiib baan igu akhrinayaa si fiican u fahamteen. Hadda si boobsiisan baa u akhrini dhegeysta. This is a post office. We can send letters from here. The postman delivers letters. Julie is sending a letter to Sam. We can also buy stamps from the post office. Kusoo ceshta idinkana iga daba akhriya markastaan akhrinayo. James, a good brother. James waa walaal fiican. Walaalka wiilka. James is a kind brother. James waa walaal naxariis badan who never forgets or hilmaamin his sister walaashiis. James is a kind brother who never forgets his sister. James waa walaal naxariis badan oo walaashiis hilmaaminba. No matter how busy he is, si kasta uu busy ama shaqadiisa u badan tahay, no matter how busy he is with work, he always finds time. Mar kasta wuxuu ii helaa waqti to help her oo igu saacideeyo ama iyada ku saacideeyo and do his work asagoo shaqadiisa weli sameynayo. Tan waa ku celinayaa. No matter how busy he is with work, si kasta uu shaqadiisii uu busy ugu yahay, he always finds time. Waqti markastay wuxuu u helaa inuu walaashiis u saacideeyo. Time to help her and do his work asagoo shaqadiisa weli wato. Marka su'aalahan galena. Who is James? Yaa waay James? James is a kind brother. Waa walaal oo naxariis badan. Ama James is a brother. Waan dhihi karnaa James waa walaal. Wuxuu yahay walaal gabadhaas meeshaas timaha raamaha leh. Marka who does he take care of? Yuu daryeelaa ama saacideeyaa James kan. He takes care of his sister. Walaashiis buu daryeelaa ama saacideeyaa waqtigiisa siiyaa. Su'aasha saddexaad. What do you think about James? Maxaa fikradaadii aad ka dhiiban kartaa ku saabsan James? Maxaa u malaynaysaa inuu yahay? Maxaa ugu fikiraysaa? Ani ahaan
waxaan dhihi lahaa James is a good brother. James waa walaal fiican. James is a good person. James waa qof aad u fiican. Ama James is a kind brother. James waxaa waaye walaal ama aboow oo naxariis badan. Walaashiis ka fikiro, la shaqeeyo, waxay u baahan tahay siiyo. Marka waa ninkaas. My car is red. Gaarigaygii waa guduud. Red is my favorite color. Midabka guduudka waa midabka aad u jeclahay. The color of our car is red. Gaariga anaga leenahay midabkiisu waa guduud. I come to school by car. Schoolka waxaan ku imaaday gaaraal igu keenay ama ku imaaday. Haddana waan ku soo celinaynaa markaas su'aalahaas meesha ku dhigan baan isla sameynaynaa, isla jawaabaynaa. My car is red. Red is my favorite color. The color of our car is red. I come to school by car. What is my favorite color? Midabkaan u jeclahay kuu kee waaye? Waa guduud. Waxaa dhahe my favorite color is red. Midabkayga u jeclahay waa guduud. What is the color of our car? Midabka gaarigeena kee waaye? Waa red. How do I come to school? Sidee fasalka ama schoolka ku imaadaa? Waxaan ku imaadaa I come to school by car. Anoo gaari aligu keena ama anoo wato baan ku imaadaa. Haye, James walaashiis madax raaman ugu soo noqotay. She is Sophia. Iyada waa Sophia. She has a beautiful school bag. Iyada waxay haysataa boorso qurux badan oo iskuulka ku dhigato. She keeps her books and lunch in it. Buugagteeda iyo qadadeeda boorsaday gashataa. She also holds, sidoo kalete, she holds some books in her hands. Buugagta qaar gacanteeday ku qabsataa. Ay hadda waan akhrin iga daba akhriya. She is Sophia. She has a beautiful school bag. She keeps her books and lunch in it. She also holds some books in her hands. Haye marka waxaan galaynaa su'aalaha. Sophia has a beautiful dress, cambuur, car or gaari mase school bag. Ma cambuur mase gaari ama school bag? Keebay haysataa? Waa school bag. Sophia has a beautiful school bag. Boorso school bay haysataa. She keeps her dash in it. Books, car, buugta, gaari mase bike. Bicycle. Bicycle maxaa la suuqa? Waa bicycle-kaas le. Marka she keeps her dash in it. She keeps her books. Buugteeda bay boorsada gashataa. She keeps her dinner in the bag. Boorsadeeda macashee gashataa. True or false? Sax wala khalad? Tee waaye? Waa khalad. Macnaha meeshaas waxay ku qoreen she keeps her books and lunch in it. Lunch waxaa waaye qado. Dinnerna waa casho. Marka arrinkaas qalad buu noqday. Haye.